الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبضي داوديال كسر هذا برنامج أنا كجهد لأنه فائدة عنه وجودهم بعد ما هيقولين برنامج كصون شعلها هاي إن دنيا بدن كيقدونه سلام ركانا عن شعلها هاي إنه يدسوي شيء دندونه وتهاي أخيرت هذا قيمة هي قدر أنتم مدنه برنامج كنا عنها جيلة فائدة أولى هي جودهم بعد ما هي إنه كويجينه قطب كوهرية هي عن شعلها هاي وربحنا نصور ورني إنه كويجنو waxaa kamid ah khubaro u dhalatay dalka Imaaraadka Carabta UK Mareykanka iyo Australia warbixino ay ururiyeen in faa'iidada caanaha geelu ay guud ahaan aadamaha si fiican ay ugu fiican yihiin jirkooda iyo kobcinta lafaha caanaha geelu oo lagu sheegay in faa'iidooyin badan leeyihiin oo dadka abaa ay ka duwan yihiin dadkan dhamin iyagu caanaha geela ayaa waxa la sheegay khubarooyinka kala socda wadamada Mareykanka Australia UK iyo Imaaraadka Carabta khubaradaas oo jaamacadaha adduunka iyagu ka soo qalin jabiyay ayaa waxa ay sheegayaan in caanaha geela ay ku jiraan fiitamiino aad u fara badan oo ay ka mid yihiin kaalshiyaanka oo ka ilaalisa lafaha iscunka isla markaana u fiican dadka waaweyn dadka yarna waxa ay ka ilaalisaa cudurka loo yaqaan dabaysha qaaxada iyo sidoo kale malaariyada waxa kale oo ay dadka u sameeysaa jirdhis habka jirkooga oo ay muruqyada koriso isla markaana xiiq fara badan ayaan lagu arkayn bay yiraahdeen dadka cabaanaha geela khubradan oo ay ka mid tahay Dr. Aisha oo iyadu ka soo takhasustay jaamacad ku taala dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay sheegtay in iyadu iskeed u baadhay caanaha geela faa'iidooyinka ku jira muddo 10 sano ay ka soo shaqeynaysay si ay arrimahaasi u darsi lahayd waxa ay sheegtay in cudurrada kansalka iyo cudurrada ku dhaca uurku jirka sida gastriga wadna xanuunka intaas oo dhan inay ka hortagaan maadooyin ku jira caanaha geelu waxa kale oo ay sheegtay Aisha in caanaha geelu caafimaad ahaan u fiican yihiin dadka gaar ahaan dadka waaweyn ay u sameeyaan habdhiska lafahooga si aanay lafahooga isku cunin waxa kale oo Aisha sheegtay in caanaha geelu ay ku wanaagsan yihiin maadada la yiraahdo vitamin C oo iyadu wax u tarta habka codka sida dhuun mareenka iyo dhuumaha codadka soo gudbiya waxa kale oo ay u fiican tahay ciridka iyo dibnaha si aanu infekshan ugu dhicin ama bakteeriya ugu dhalan Aisha iyadoo hadalkeeda sii wadata waxa ay tiri waxaan kula talin lahaa dadka inay iyagu isticmaalaan caanaha geela marka la barbar dhigo caanayoga kale sida looda iyo ariga bay tiri waa ay ka fiitamiin badan yihiin caanaha geelu waxa kale oo caanaha geela laga helaa sida ay sheegtay cudurka caajiska oo isagu dadka ku dhaca ayuu dardar geliyaa qofka caanaha geela caba waa uu ka activesan yahay ama waa uu ka hawl badan yahay qofka caanaha kale caba waxaase la og yahay in caanaha laga nuugo hooyadu ay ku jiraan maadooyin kuwaasi la saansaana oo ka hortaga noocyo badan oo cudur ah oo ay ka mid yihiin kansarka ku dhaca afka cunaha hunguriga iyo madhicirka iyo waliba wixii lamida waa maxay Marburg Crohn waa nabro asalkoodu ka bilaabma midhicirka ama qayb kasta oo kamid ah dheefshiidayaasha ama ka bilaabma afka ugana sii gudba hunguriga gaarina kara ilaa meesha ugu dambaysa midhicirka haba u badnaadeen qaybta u dambaysa midhicirka yar ee loo yaqaano ileum ama halka uu ka bilaabmo midhicirka weyne ee loo yaqaano Crohn aakhirkiina isu bedela noocyo kamid ah kansarka iyo gastriga iyo waliba dabcan xanuuno kale oo ku dhaca uurku jirta iyo wixii lamida Soomaalidu waxay tiraahdaa nimco waliba nusqaan leh waxa iyana baaritaanada lagu ogaaday in ha yaraato ama ha badnaatee caanaha geelu ay lumiyaan noocyo fara badan oo macdano iyo waliba fiitamiin ah marka la kululeeyo ama la kariyo halkaasina waxa ka dhalatay su'aal oranaysa sidee waqti dheer loo kaydin karaa caanaha geela iyaga oo aanu ku iman wax isbedelahay loona gaadhsiin karaa wadamo fogfog maadaama aynu wada ognahay in dadka geela dhaqdaa ay badiyaa ka durugsan yihiin magaalooyinka sida aan filayo dad badan oo idin kamid ah oo caanaha geela ka daahna faa'iidada ay u leeyihiin aadamaha ama qaarkood ay u haystaan in caanaha geelu ay calooshooda qura socodsiiyaan ayaan jeclahay in ay wax badan ka fahmeen haatan haddii aynu ka soo noqono khubaradaas
iyagu caalamka ka kala socday iyo warbixinta ay kasoo diyaariyeen caanaha geela aynu dib ugu soo noqono dalkeena Somaliland dhaktar ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha Somaliland oo magaciisa la yiraahdo Dr. Khayre Cali Xasan ayaa isaguna waxa uu ka bixinayaa si cilmiyeysan waraysi aan kula yeelnay arag maqalka qaranka Somaliland telefishinkiisa mar uu nagu soo booqday bal isna aynu eegno waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo oo su'aashayda koobaad ay noqonaysaa bal caanaha caafimaad ahaan caanaha geelu maxay aadamaha ugu fiican yihiin maxay kaga duwan yihiin caanaha kale caanuhu waxa weeyaan waxyaabo badan baa loo isticmaalaa waxyaabo badan oo waxa ku jira maxay ahayd maadooyin uu dheer yahay caanaha kale ee xoolaha kale sida lo'da iyo arigaba caanaha geela haddaan qodobada ugu muhiimsan soo qaato waxay kaga faa'iido badan yihiin caanaha kale waxa ku jirta maado loo yaqaano vitamin C vitamin C-du aad bay ugu badan tahay waxay kaga badan tahay ilaa 4 jibaar sida ay aragtiyada qaar sheegayaan waxa kaloo iyana ay faa'iido leedahay waxa ku yar caanaha geela maadada loo yaqaano cholesterolka ama subagowga subaga iyo cholesterolka wuxuu sameeyaa cillad buu ku keenaa maxay ahayd bulshada siiba dadka qaba dhiigkarka iyo dadka qaba macaanka iyo xanuunadaasi ma isticmaali karaan cunto uu ku badan yahay subagu marka caanaha geelu waxaa ku jira maado aad u yar oo cholesterol ah qofkana kuma keenayaan wax cillada waxaana lagu daweeyaa xanuuno badan oo ay ka mid yihiin sida dhiigkarka iyo sonkorowgaba waa lagu daweeyaa marka caanaha geel waxaynu odhan karaa waa caano dhammaystiran oo u fiican maxay ahayd bulshada dadka yaryar dadka waaweyn dadka maxay ahayd xanuunsanaya nooc kastoo ay tahay waxaa kaloo ku jira maadada copper loo yaqaano manganese magnesium waxaa kaloo ku jira sodium zinc maadooyin badan oo faa'iido leh iminka vitamin C oo kale waxay ka dawo tahay xiridad xanuunka waxay ka dawo tahay maxay ahayd qofka oo ay dubnuhu dildilaacaan waxyaabo badan bay iyadu ka dawo tahay irontu iyadu waa dhiigga ku jirtaa maada muhiim u ah dhiigga weeyo waxay qaadaa oxygeenta waxaa kaloo ku jirta maadooyin kaloo ku jira oo muhiim ah iyana oo antimicrobialis ah oo ka difaaca qofka maxay ahayd jeermi dilayaal baa ku jira caanaha geela oo aanay ku jirin caanayowga kale ee xoolaha kale laga helo kuma jirto maadadaasi ama way ka yar tahayba waxaa ku jirta maado kale oo iyana lafaha dhista oo lafaha adkaysa oo qofku uu xoog ku noqdo marka maadooyinka marka la isu geegeeyo wuxuu noqonayaa caanaha geel waxay noqonayaan kuwa ugu waxtarka badan ee adduunyada inta la og yahay maxay ahayd jira doctor wali caanaha ayaan jecelaynaa si dhex socono oo aynu dadka dhinacyo badan ka tusano dadkeena markaad weydiisay waraysiya ama aad la sheekaysatay ka waraysato caanaha geelu maxay dadka u taraan runtii waxay qaarkood ka odhanayaan calooshii socodsiiyaan qaarkood waxay ka odhanayaan lafahay dhisaan cilmiyan waad nooga warrantay haddaynu daba usoo noqono siyaabaha wax looga taransado caanahaasi ay isku kala bedeli karaan haddiiba laga taransanayo oo ay dadweynuhu amaba dadka jecel caanaha geelu siyaabo kale u isticmaali karaan adaba aqoon leedama jirta siyaabo badan baa looga faa'iidaystaa caanaha geela waxaa loo kala bedbedelaa habab kala duwan caana fadhiga oo kale waa laga sameeyaa cheese oo iyana muhiima mararka qaar waa laga sameeyaa walow caanaha geela caanaha kale ay kaga fiican yihiin sida maxay ahayday lo'da iyo ariga laakiin caanaha geelu waxaa laga samayn karaa caana fadhi subag gabadhiisa waa laga saari karaa walow caanaha geelu ay ka subag yar yihiin caanaha lo'da oo had iyo jeer dhaqan ahaan soomaalida ma lulaan caanaha geela taasi waa sababta keentay inaan caanaha la lulin oo subag laga saarin subagaa markooda horeba ku yar waana ta ay dad badan dawo ugu tahay oo subagii haddii caanaha ay ku jiraan caalamka waxaa dufan ku badan yahay dadku had iyo jeer cilladaha ku badan oo xanuunada qofka jooniska qaba oo kale wax subag leh ma lama siin karo maxay ahayday cholesterol bay leeyihiin markaa iyagu faa'iidadaasi kala yihiin waxay kaloo ku jira iyana brotiin qofka dhan iyo carruurta koraysa oo kale brotiinku aad buu muhiim ugu yahay inuu dhiso jirka maxay ahayday ilmaha iyo carruurta waxaa kaloo jirta qofku hadduu caano geel oo keliya cabo oo aanu muddo 6 bilood aan wax cunto kala dhadhamin wuxuu helayaa
faa'iido ka badan hadduu waxyaabahan kala cuno caanaha geela keliya uga faa'iido badan oo uu ku noolaan karaa muddo dheer. baaritaanada qaarkood waxay sheegayaan in cudurka kansarka laftigiisu maado ku jirta caanaha geela ay dawo ka tahay amaba ay dhinto beenka faraha badan leh si kala hadaynu dhibna xanuunka faraha badan leh qofka markuu kansarka qabo la kulma taana adan nooga aqoon roon tabarka waran waxaa jirta maado maxay la yiraahdo bedouins afka qalaad lagu yiraahdo waxa weeyaan waxay laysaa jeermisyada iyo weliba saliska maxay hayday aan jirku u baahnayn ayay kantaroosha ama ay yaraysaa. marka maadadaasi waxay keenaysaa in jirkii kansarka lahaa uu ay maxay hayday layso oo jirkan kansarku waa jir iska korayo oo si aan loo baahnayn u weynaanaya saliskii si aan loo baahnayn u fidaya. markaa saliska waxay xadidaa heerka fiditaanka ay ku fidayaan. waxaa kaloo la yidhaahdaa kaadida iyada qudheeda geela waxaa la yidhaahdaa waxaa ku jirta maado muhiima oo kansarka dawo ka ah oo maxay hayday waxaaba dhacday in xadiis soo arooray oo nabiga ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam uu sheegayo oo saxiixa uu xadiiskaasi sheegayo in asxaab xajka tagtay ay xanuuna qaadeen caloosha shubantay ayna fuurtay oo naqas badan iyo ay keentay. markaa xadiiska bukhaari iyo muslim baa warinaya waxa uu ku sugnaaday oo uu xadiisku sheegayaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi waxaad isku dartaan qadar kaadi geel ah iyo qadar caano geel oo fresh ah. markaa qadarkii markii la isku daray way ku dawoobeen. sidaa daraaddeed waxaa la aaminsan yahay ilaa iminka dadka muslimka waxay aaminsan yihiin inay kaadida lafteedu dawo tahay oo caloosha fuurtay ee asxaabta waxaa la yidhaahdaa waxaa keenay dee walowaan toos loo garanay haddana inuu joonis ahaa, inuu ahaa maxay hayday kansar, inuu ahaa calool caabuq kale, inuu ahaa gaastiri, wuxuu ahaa dee lama laakiin calool ciladaysantay ayuu daweeyey. kansarka gudhiisa waxaa la yidhaha kaadidu maado ku jirta ayaa ka dawo ah. walow qoladan reer galbeedku ay yidhaahdaan inagu diiniyan muslim ahaan waynu aaminsannahay in oo meelo badan oo dalalka muslimka ahi way isku daweeyaan iyagoo xadiiskaa feergaraynaya. gaaladu laakiin waxay yidhahdaan iyo qoladan reer galbeedku waxay yidhahdaan maadooyin waxyeellale baa kaadida ku jirta geela. markaa taasina way jirtaa. دكتور waxaa jira dadka qaarkood waxay ka oranayaan caanaha geela ma cabayno waxaan leenahay gaastariyo dabeeto waxay aaminsan in gaastariga ku kicin yahay caanaha geela cabaan balta laftigeeda seen bulshadeena ina daawanaysa ay ugu faa'iideeno qofka gaastariga qaba caanaha geela ma isticmaali kara. caanaha geela qofka gaastariga qaba uu isticmaali karaa waayo caanaha geelu gaastariga horta waxa keena maadooyin gaara iyo acid ku badatay caloosha ama bacteria caloosha ku jirta ay samaysay. marka taa way deeyiga khibrad badan yihiin dhakhaatiirta dadku haddana caanaha geelu wax maado ah oo ku jiro oo kicinaya ama kordhinaya gaastariga ama gaasta caloosha acid caloosha oo iminka aan garanayna ama haynaa ma jirto. وتاي سؤال شو قدام بس يعني شعله هاي دكتورنا كويدية وحويان عذرك HIV AIDS كأيا لا شيء والله أنا صحين حكتها سي أو عن شعله هذا جينا بقول ما حق يسادي ترتيها داني تشرين إن ما أنا هجيل لفت جيد كترتها أي دويسو عذرك HIV AIDS كا بعد تام حد كترتها. وسؤال هذا في عن ولا ويسرتايو كدقنهم بواحد مقلي قدر بدن أو xanuunka qaaday ilaahay naga haye oo markay qaadeen miyu u baxay deetana caana geel isticmaalay muddo dabadeedna markii dambe xanuunkii laga waayay. taa marka aynu dhinacan meesan ka eegno waxay maxay hayday maadooyinka ku jira ee jeermi dilayaasha antimicrobials jeermiga hadday bacteria tahay iyo hadday tahay virusba
waxa weeyaan maadooyin aada u waxtar badan oo caanaha geela ku jira maadada kale bidaweynta la yidhahda iyana waa maado faa'iido leh oo ka qayb qaadata inay jeermiga jidhka qofka ku jira ee aan loo baahnayn inay layso marka maadooyinkaasi waxaynu odhan karnaa marka ay caanaha geela ku jira marka qofku isticmaalo weliba si joogtaa u isticmaalo inay wax badan ka tarayaan jeermi kasta ama edis ha ahaado ama joodis ha ahaado ama nooc kasta uu yahay marka halkaa waxaynu ka odhan karnaa caanaha geelu way wax badan bay ka tari karaan cilmi baarisyo kolley badan oo laga sameeyna dee way jiraan oo waynu taana eegi karaa marka maadooyinka markaynu eegno waxaynu ku go-aan qaadanaynaa inay caanaha geelu wax ka tarayaan xanuunka iyo xanuuno kale oo badan oo la jira daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudanow dr khayre cali xasan oo kamid ah wasaaradda xanaanada xoolaha somaliland oo telefishinka qaranka somaliland iyo nagu soo booqday aad ayaan kugu mahadnaqaynaa sida fiican ee aad waqtigaaga noogu soo hortay mahadsan yahay dr khayre oo isagu ka tirsanaa sidaan horeba idigu sheegay wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan ee u qaabilsan guud ahaanba xanaaneynta xoolada hadduu isagu inoo sheegay in ay jiraan cudurro badan uu daweynayo caanaha geela haddii isticmaalkiisa aada loo badsado waan filayaa dadka macaanka qaba iyo kuwa gaastariga leh sidoo kale kansalka ayuu wax ka taabtay aynu isaga intaa kaga nimaadno dhanka kale iyo barnaamijkeena akhyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudano barnaamijkeena dib ayaynu ugu soo laaban doonaa hase haatee qadareydha iskugu soo noqonay daawadayaal oo barnaamijkeennii caanaha geela iyo faa'iidada uu leeyahay in weli bartanka kaga jirnaaye bal qaybta kale iyo dhaqan yaqaanada reer Somaliland maxay ka yiraahdeen waa kan awaan Muuse Cali Faruur oo isagana arag maqalka qaranka Somaliland aan waraysi kula yeelanay horta guud ahaanba geela waynu naqaanaa inuu geel yahay maxaase uu dadka u faa'iideeyaa in badan oo inaga madiyo aad uma taqaano sidaa daraadeed ayaan Muuse jecel lahay bal hadda marka ugu horreysaba su'aasha ugu horreysa inay noqoto muxuu yahay geelu maxaase looga faa'iideystaa geelu waxa weeyaan noloshii koowaad ee Soomaalidu lahaan jirtay maanta adduunyadu dhaqaalaha kale haysataa oo daaraa la dhistay oo dawladaha la dhistay oo nolol kalaa la helay laakiin kol baa noloshu ahayd hasha oo hasha ruuxu ninkaa hasha leh inuu isagu dhintay iyo in hashu dhimata ayaa reerka isugu mid ahaa waayo waxaad ku garanaysaa nin baa wuxuu yidhi intuu gabiyey waxba igama dhibo geel haddii laygu dhaawaca buuri wax dhibaataday tahay haddii layga dhiciya haddii laygu dhaawaco waran laygeliyo geel anoo dhacaya waxba igama dhibo buuri waxse dhibaataday tahay haddii layga dhiciyaa buuri oo horta geelu noloshaasuha kow nolosha muxuu noloshaa u lahaa jiilaalkii isagaa ka saari jiray reerka dhulku barwaaqu markaa ahaan jirayoo maanta ninka 100 halaad leh baryaha qaarkood ninka 10 halaad leh baa ka faa'iido badnaa oo dhulkaa wada barwaaqa ahaan jiray oo 10 halaad ayaa ka faa'iido badnaa maanta 100 halaad jooga waa marka labaade caanuhu dee nolosha koowaad bay haayeenoo dhaarta ugu weyn ee uu ninku ku dhaartaa wuxuu odhan jiray wallaahi la nabad iyo caanabo waada dee nabadda waynu garanaynaa inaan nolol ka dambaynin caanaha ku xigay nabad iyo caanabo waana dadka waa lagu habaari jiray kolkaa caanaha geelu dee horta heerkaasi adeer taagnaayey waa marka kale caanaha geela ayaa maanta caano geel baynu dhaqaanaa dhay iyo dhanaana maalin dhawaytaan dhegaysanayay nin caano geel ka sheekaynayo oo la yidhaaho idaajaa axmed faarax cali idaajaa oo caanaha geelu 3 ka dhigay iyo 4 caanuhu waxay ahaan jireen geelu mar waa lis oo hashii halka taagan baa laga liso xoor bay leedahay
mar waa dhiisin oo waa intood hashii ka listay baa dhigto habeenkii bay qaboobeen mar waa waraaba qandhis oo labeen baa soo fuushay mar waa kafoofeen oo xoolihiisaa geerisaaka marka la lise la sii daayo barqinka caanaha la hadhuubka lagu dhiga halkaa la dhigay marka aad martida u keento ama dadku cabaayo kuwa tallaajada maanta la geliyay way ka qaboobaayeen kolkaa caanaha markay noocaas yihiin ee kafoofeenka ah iyo kuwa waraaba qandhiska ledha labeentu fuushay labadaasi waa kuwa dadka lagu dacar bixiyay ahaa jira mar waa carab diiris mar waa dhanaan mar waa dhanaan marna waa maydhanaan marna waa karuur marna waa galxood 12 nooc ayaa jira oo iyo 2 nooc oo kale ay yiraahdaan koonfurta looga yaqaano suusac iyo mayac 14 كان نوع بان horta magacyadooda waqaana caanaha geel kolka caanihii geel waxa weeyaan waxay ahaayeen qaar cajaa'ib ah marka anigu aan xasuusto dhalaarka iga soo daadanaya marka wali anoo aan joogin anoo dooro ilaahay abuuray oo meel magaalo jooga mii hadalkeed badaayo habeenka aan koobnaha caana geel waado ودوران بيسمر واقع كوبري والله يقطع ولقي وهبيك باصر هبيك أنا كنت عانا جيل عبيد كل كان جيل هو أبور قورية وإلى هذا قلت لك رجع إلى هذا تقرأ كور هو عركته يا لكن كالصومالي دنا وكلف ضربة جبي جيسبة وده أمانة جيل أمانة markuu wuxuu ku sheegay garwaay wuxuu yiri ildeera bachimba adaga ma birba awrana basanga adana badimba udgoona bahashba awrana balababuri barinta isku keenay kada hada yaani uu ku wareeray waxa wuxuu ku qiyaaso garwaay wanjalahay in Muuse uu waxyaabo badan oo midbadu inaga jiray inoo waad xgareeyay ama uu inoo cadeeyay sababtuna ay tahay waa aragnimo iyo khibrad uu leeyahay iyo dhaqanka uu aad u dhaqan yaqaan u yahay sidoo kale waa abwaan heesiisa qaar ayaa ku jiraan geelo intaas aan ku soo gabagabeyn la Muuse waraysiga aan kula yeelanay telefishinka arag maqalka qaranka Soomaaliland iyo barnaamijka geela iyo caanaha faa'iidada dadka u leeyihiin oo ka hadlayay sida aynu ka warqabnano guud ahaanba Soomaalidu dhaqanka geela meel weyn ayay kaga jiraan ama si weyn ayay u taageersan yihiin waxaad ku garan kartaa marka wiilgayaan uu soo doono gabar gashaantiya waxa uu bixin jiray 100 halaad oo cagowga ku taagan iyo gamaan faras sidoo kale hal qori ayaa raaci jiray waxa dareemaysaa caanaha geela inagoo aan kaba hadlayn bal geelu Soomaalida halka uu ka taagnaa walow aad hadda moodo inaanay dadku sidii hore aanay miyiga ugu dhaqnayn oo magaalo lagu soo wada jabay hase ahaatee haddana weli dhaqankii miyigu kamuusan bixin meeshii waxaynu suurtageliyay barnaamijkan quruxda badan leed arkaysaan inaanu soo ururino isla markaana halka kanaanadii ka soo gudbino guud ahaanba madaxda telefishinka qaranka iyo gaar ahaan waaxda tababarka telefishinka qaranka Soomaaliland oo aan aad uga mahadnaqayo leeyahay aad ayaad ugu mahadsantiin barnaamijkeeni waxaynu soo gaarnay guntiga gabagabadii iyo soo afmeeristii barnaamijkeena waxaana ugu dambeeyay qodobka Muuse Cali hasaatee tan iyo intaan dib barnaamijkan oo kale hawada ugu kulmi doono waaniga oo ayaan Cabdirasaaq Jaamac iyo injineer Maxamed Cabdilaahi Maadey oo dhinaca editinka iyo kamarada si weyn nooga caawiyay sawirada aad arkaysaan isagu si weyn u qurxiyay aragti dambe waxaan idin leeyahay aragti maqal wacan oo wanaagsan